warar hoose oo helna ayaa sheegaya in qaar badan oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya inay wadaan qorshe loogu guurayo Villa Hargeysa ilaa doorashada madaxweynaha. xildhibaanada ayaa walaac xoog leh ka muujiyay weerarkii shalay lagu qaaday shirkii golaha. xarunta ku meel gaarka ah ee golaha shacabka ayaa shalay lagu qaaday weerar madaafiica xilli ay ku shirayeen xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka. xildhibaanada mucaaradka ayaa weerarkaasi ku eedeeyay kooxda madaxweyne Farmaajo oo ay sheegeen inay dhibsadeen sida uu goluhu ula aaday jiha kale mowqifkii ay rabeen ee dib u dhigista doorashada guddoonka labada aqal. xildhibaano badan ayaa gudoomiyaha ku meel gaarka ah ee golaha shacabka xalay la wadaagay walaacooda ku saabsan ku shirista Villa Hargeysa. waxay soo jeediyeen in loo wareego teendhada Afisoni ilaa laga dooranayo madaxweyne cusub. guddoonku waxaa la sheegay inuu soo jeedintaas aqbalay, laakiin lama hubo in la fulin doono kulanka ugu soo horeeya ee golaha shacabka. wax ka yar 500 oo mitir ayaa laga soo tuuray madfacaas. halis ayay xildhibaanadu galeen. sidoo kale goobta waxaa ku wada sugan ciidan iska soo horjeeda. amnigeennu halis ayuu ku jiraa. kuma dhiiran karno Villa Hargeysa, waana sababta aan walaaceen ula wadaagnay gudoomiyaha ku meel gaarka ee golaha shacabka, ayuu yiri mid ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka kuwooda u ololeynaya in kulamada soo socda ee golaha lagu qabto teendhada Afisoni. haddaba maxay ka dhigan tahay in 5 sano kadib baarlamaankii Soomaaliya ka qaxayo halkii uu ku shiri jiray? waa gunaanad aan u fiicnayn dawladdii talinaysay 5 sano ee la soo dhaafay. ammaanka dalka heerka uu maanta taagan yahay ayay sidoo kale daliil fudud tahay. xaalka Soomaaliya ee maanta iyo baahida loo qabo nidaam cusub ayay dhinaca kale faydaysaa dhacdadan. inkastoo aan la xaqiijin karin eedda xildhibaanada mucaaradka ee la xiriirta inuu hoobiyihii shalay ahaa mid siyaasadaysan, haddana kala aaminbax weyn oo aan heerkiisa waayadan la arag ayaa ka dhex jira hay'adaha dawladda. madaxtooyada dhexdeeda ciidanka ku jira isku amarku ma shaqeeyaan, mana haystaan wax ay ku midaysan yihiin oo ay difaacaan. koox ciidankaas ka mid ah waa ku cusub yihiin gudaha madaxtooyada oo waxaa la keenay wixii ka dambeeyey markii uu madaxweyne Farmaajo isku dayay inuu qabsado xafiiska ra'iisul wasaaraha. ciidanka Roobla taabacsan iyo kuwa Farmaajo taabacsan ee haddana isdiidan ee madaxtooyada ku dhex sugan damaanad amni ma siin karaan xildhibaanada ayaa ka mid ah doodaha taagan. sidoo kale golaha shacabka waxaa sanadkan ku soo biiray saraakiil aad u hubaysan oo mar walba la qiyaasi karo inay gaadiid dagaal hubaysan la imaan doonaan golaha. qaarkood magaalada Muqdisho ayuu dagaal culus ku dhex maray 1 sano ka hor xilligii muddo kororsiga oo ciidankoodu isma ogolay ilaa hadda. sidaa darteed aaga goluhu aamin maahan ayay leeyihiin dadka taabacsan doodda xildhibaanada dalbanaya in loo wareego teendhada Afisoni. dawladda cusub ee dhalan doonta iyo hoggaankeeda ayaa laga rabaa inay keenaan dariiq lagu aamini karo laamaha amniga, laakiin shaki xoog leh ayay xildhibaanada qaar ka qaadeen duqayntii shalay. xildhibaanada taabacsan madaxweyne Farmaajo waxay aragtida loogu guurayo dhanka teendhada Afisoni u arkaan mid ololo ah oo la rabo in lagu muujiyo in xildhibaanadu naftooda kala carareen Farmaajo. suurtagalna aanay ahayn dib u doorashada hoggaamiye halkaa gaarsiiya xalka. si walbaba waxaan eegaynaa sida uu qorshahani ku dhaqan galo iyo haddii la isku raaco. maxay kula taadiga?